أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. درسيا نحو كبلابنا يا آيات الصدنات سورة الأنفال كاملة آيات مناسبة يذو وحيكاها ليسا النبي صلى الله عليه وسلم حلقي إنه هجرو ذا أي أهيد oo maka intii lagu dhibay asxaabtiisa uu fasaxay inay Madiina u hijroodaan asagana wali aan la fasaxin ee uu maka joogo yaa markii fasaxiisu iimaanayay asbaabtii fasaxa keentay ayaa waxa kamid ahayd shirqool gaaladu ay maleegeen oo ay isku daayeen in ay dilaan waxay ku kulmeen meel la yiraahdo Daarun Nadwa xiwaarkii ama doodii dhaxmartay baarlamaankooda oo Daarun Nadwa la yiraahdo xilligaas ayuu quraanku inoo tilmaamayaa shirqoolka ay maleegeen iyo mawaaqiftii iyo niqaashkoodii iyo aaraadii kala duwaneed ay soo bandhigeen. Ibn Abbas waxa laga soo wariyay inuu yiri koox kamid odayaasha Quraysheed ayaa Daarun Nadwa ku kulansanaa waxa uu yimid Ibliis ama shaytaan ayaa u yimid asagoo iska soo dhigay sidii nin waayeel ama oday iska soo dhigay markay arkeen waxay ku yiraahdeen yaa tahay wuxuu ku yiri waxaan ahay sheekh min al-arab oday carbeed ayaan ahay waxaan soo maqlay kulankiina sida uu muhiimka u yahay waxaan damcay inaan kala soo qayb galo talana inaan idinku beeriyo waxay yiraahdeen soo dhawow aadaan ugu faraxsanahay nagala soo qayb gal markaas wuxuu ku yiri bal wax ka warrama maxaan ka sameeynaa fi sha'ni hada rajul ninkan xaalkiisa ka warrama nabiguna u jeeda sallallahu alayhi wasallam waxa dhahaya sheekhi oo carabta aha oo laakiin asalkiisa uu Ibliis aha oo shaytaan saa iska soo dhigay wuxuu ninkan maxaan ka sameeynaa mid baa wuxuu yiri shirka fadhiyay hal xiro xarka intii lagu xirxiro ilaa uu ka dhinto yani xabsi daa'in lagu xukumo oo meeshaas ku jiro markaas shaytaan intuu qeyliyo wuxuu ku yiri wallahi ma hada lakum biraa'i kaasi ra'yi idin noqon maayo maxaa yeelay waxa dhacaysa hadaad meel ku xirtaan inay asxaabtiisu intay imaadaan si xoog leh ay ku sii daayaan oo xabsiga ay ka fakiyaan marka inaad haysan kartaan meehe waan xirayna horta aan la idin ka maqlin mid kale wuxuu yiri waan bixinaynaa oo magaalada ayaan ka saaraynaa oo magaalada banaankeeda waan tarxiilaynaa meel shudooni ha aadee maka ayaan ka burinaynaa markaas markuu sidaas yiri oo markaan iska saarno dhibkiisa ayaan ka nasanaynaa yaa odaygii wuxuu yiri carabta ahaa laakiin shaydaanka ahaa wallahi ma hada lakum biraa'i kana ra'yi idin ma aha ninkan Soomaaliyeed anag buu yiri hadal macaankiisa iyo codkarnimadkiisa iyo sida uu quluubta u kasbanaya markii uu dadka la hadlo wallahi la in fa'altum haddaad saas yeeshaan oo magaalada intaad ka eridaan oo wadamada kale u aado la tajtami'anna calaykum al-arab arab oo dhan ayuu idin soo kaxaysanayaa hatta yukhrijukum min biladikum ila magaaladina ay idin ka saaraan wayaqtulu ashraafakum madaxdiinana ay laayaan ninkan fursad baabad siiseen haddaad banaanka u burisaan oo banaanka u eridaan arabta kale intuu isku soo dibrito oo kulli idin ku soo kaxeeyo yaa harkoo cad ayuu magaalada idin ka saaraya markaas waxaan sadaqa warninkan run badana haddaba ka fiirsada maxaynu sameeynaa أبو جهل وحوري والله لا أشيرن عليكم برأي ما أرى غيره رأي أيان ذين هايا أصوك لا أنا هينين يعني رأي وفي عن ومتكل أنا يقصد عن أيا يقصد عن ذين شيء جايا وحيد هذا المحاذ هيسا وحوري حن سمينا قبيل والبقى قبائشة قريشات كمدة وحن كسو قاضينا ويل حوق بدن أو اللي يرى وحن سينا سيف أف بدن أيان سينا مركز وحي كل فنايان ضربة رجل واحد هل نن لفشدي سؤال كله أي سيفت هل مركو كل منايان ويتفرق دمه في القبائل كلها ليجي سنة وحكوك للتجايا قبائل كالحضورة هذا مركي ديدا هلا بحيل هذا أفرتن ويل أياد دي شيء أفرتن قبيل أو كل دوان كم كسو جيدا قبيل كي ميقا كسو هجايا سمركا بقول كي نيف أو جيدا وأنا سكوت دردرينا مركا دي أفرتن مركا الله قبيل بقول محاول كسو هجايا قبيل كيف وحير أيا كسو هجايا صدح iyo waxa jajaba soo aadaya marka way qaybsanayeen waxay dheen diidaas inama dhibi doonto diyoon bayna qaadan doonaan qabiilkiisa wuxuu yiri mana u malaynay bani hashim oo nabi uu ka soo jeedo inay awood u heli doonaan ala harbi quraysh kullaha quraysh oo dhan inay ay la dagaalamaan inay awood u helayaan ilama ah waxayna ku qasbanaan doonaan inay diyada ay qaataan saasaan marka dhibaatadiisa uga nasanaynaa halkaasina arrintu ku dhamaan doontaa markaas shaydaan markuu warkii Abu Jahl dhageystay ayuu dhawaaqay oo uu qayliyay markaas wuxuu yiri wallahi kan ayaa ra'yi ugu fiicnaa ee kan aan qaadano sidii ayay go'aan ku gaareen sidii ayay ku kala tageen waxay soo ururiyeen wiilashii 40 ka ah oo seefta loo soo dhiibay nabiga si loo dilo
isla markii jibriil ayaa u yimid nabiga sallallahu alayhi wasallam wuu u sheegay wixii dhacay wuxuuna amar ku siiyey inuusan caawa seexanin gurigiisa maxaa yeelay in la dilo ayaa la qorsheeyey wuxuuna u fasaxay inuu hijroodo oo magaalada uu ka baxo ilaahayna wuxuu soo dejiyey markii yani madiina nabigu uu tegey asagoo in arrintan aayadan loo sheego oo shirqoolkii iyo wixii meesha ka dhacay yaa looga sheekeeyey markaasaa ilahay wuxuu leeyahay waid yamkuru bika aladiina kafaruu waid waqti xusnabiow yamkuru ay shirqoolaayeen bika adiga aladiina kafaruu kuwii gaaloobay ay ku shirqoolaayeen oo waxyaabaha ay ka wada hadleen ee inay kugu sameeyaan ay ahaydna ay yidhaahdeen liyuthbituuka inay ku xiraan aw yaqtuluuka ama ku dilaan aw yukhrijuuka ama ay ku bixiyaan shirqoolka ay kuu maleegeen oo ilaahay uu kaa badbaadiyey nabigow bal dadka u sheegaa lidhi waid waqti yamkuru ay shirqoolaayeen bika adiga aladiina kafaruu kuwii gaaloobay ay ku shirqoolaayeen liyuthbituuka inay ku xiraan aw yaqtuluuka ama ku dilaan aw yukhrijuuka ama ku bixiyaan oo magaalada kaa saaraan marka xiritaankiina waa la diiday bixintiina waa la diiday waxay isku waafaqeen dilkiisa ayay isku waafaqeen laakiin niqaashkooda aaraadii soo gashay ayaa waxaa ka mid ahaa in la xiro ama la dilo ama la bixiyo hal la dilo ayaana go-aan lagu gaaray wayamkuruuna way shirqoolaayeen wayamkuru allahu ilaahayna wuu abaalmarinaayey shirqoolkooda ayuu ku abaalmarinaayo inuu u fuli ayay u malaynaayeen ilaahayna taas waa uu diiday wallahu ilaahay khayru lmaakiriina kuwa abaalmariyuu u khayr badan yahay yani makrigu waa shirqool waxaa isticmaala qof daciifa oo cabsanaya marka baabkan waxaa la yihahdaa mushaakalo labada kelimo xagga lafdigana isaga eg xagga macnahana ku kala duwan marka labada waa makri kan gaaladu waa shirqool daciifnimo ah ama gaaditaan oy rabaan nabiga inay gaadaan oo isagoon iska ogeyn inay dilaan ilaahayse markuu dadka qabanaayo yani gaadid ma ahe ayagoo maalin cad jooga ayuu ilaahay qaban karaa marka maadaama ayaga shirqool ay maleegeen mushaakala baab la yidhahdo balaaqada ayaa loo soo geliyo waxa la shirqoolkiini mid u dhigma oo abaalmarin ah oo wixii aad samayseen jazaheedii ah ayuu ilahay idinkula dhaqmay marka waxa wayamkuruuna way dhagraayeen wayamkuru allahu ilaahayna wuu abaalmariyey oo ayaga meesha ayaga inay wax yeelayaan ay u malaynaayeen ayaga wax la yeelayey oo waxaa dhacday nabiga markii la yidhi caawa meeshaa seexanayna gurigaaga ka soo bax ayagiina albaabka hortiisa ay fadhiyaan yuu nabigu wuxuu soo qaatay yani gacantiisa wuxuu ku qaaday carra ayuu soo qaaday wuxuu guriga ka soo baxay isagoo yaasiinka akrinaaya ilaa laga gaaro fa akhshaynaahum fahum laa yubsiruun markaasay kulli seexdeen xataa shaydaankii wuu seexday markaasaa nabigu wuxuu simi sal ly slam dhammaantood madaxa ayuu carro uga wada shubay carro markuu madaxooda ka buuxiyey ayuu iska dhaafay oo u baxay dadkii ayaga soo qorshaysay inay wax dilaan iska dhaaf inay wax dilaane ayaga waxay u baahdeen biyo ay madaxa iskaga dhaqaan carradii lagu shubay daraaddeed marka ayaga ayay ku daadatay way macnaha wayamkuruuna wayamkuru llah wallahu ilaahay khayru lmaakiriina ku abaalmaray ayuu u khayr badan yahay ayaguu la gediyey nabigii waxba ma gaarin ayaga ayaa carroobeen waidaa tutla calayhim wadkur xus id yamkuru markii sidaas la soo yidhi kadib yo haddana ilahay wuxuu inoo tilmaamayaa gaaladu habkay u dhaqmi jireen iyo madax adaygoodii iyo sida qur'aankan ay uga hor imaadeen waidaa tutla haddii la akriyo calayhim korkooda aayaatuna aayaadka annaga oo qur'aanka haddii lagu akriyo qaaluu waxay dhahayaan qad samicnaa waan maqalnay low nashaau haddaan doonnana laqulnaa waan dhihi karnaa midla haadaa kaas oo kale waan dhihi karnaa in haadaa kan oo qur'aankaa ma uusan ahaanin ilaa asaatiiru alawaliina kuwii hore beentooda unbuu ahaaday yacni gaalada qur'aanka markii lagu dul akriyo jees-jeesa waxay u leeyihiin kanoo kale waan dhihi karnaa waana beentooda ma dhihi karaan waa la weydiiyey waxaa la yidhi haddii qur-aankan uusan xaq ahayn bal asagoo kale la imaada fa'tuu bisuuratin min milih hal suurad oo asagoo kale ah keena ma keeni karaan lain ijtamacat alinsu waaljinnu calaa an ya'tuu bimili hada alqur'aani laa ya'tuuna bimilihi walow kana bacduhum libacdin dhahiira yani haddii yani jinni iyo insi ay isugu tagaan qur-aanka inay keenaan ma keeni karaan laakin istihzaa iyo jees-jees waxay leeyihin annagaba kanoo kale waan alifi karnaa waan samayn karnaa haddaad samayn kartaan yaa idinka hortaagan maad samaysaan halla arkee hadday waxba isku dadayeen wax yani hadda haddii la sheego aan qiimo lahayn oo yani qur-aan ay ka dhidhigaayaan ayay isku yidha aadiyeen ayagii naftoodii baa isku qoslaaya oo dhahay war waxaas waxba ma ah qur-aanka ilahay markay dhegaystaanna way la yaabaayeen si isugu habaysan yahay sida ay tahay
marka quraankan cid soo kala samayn kartaa ma ay jirto wax ka sheegiisa iyo kitaabka quraanka la gubay iyo nabi ayaa wax laga sheegay iyo taariikhdan way soo mari jirtay waxbana antaas kuma qaad jirin gaaladu quraanku wuxuu noo tilmaamay mawaaqifta xun ee istaageen iyo sida quraanka yaani u diidi jireen quraankiina hor u sii socdaa wuu sii faafaaya waxba kama qaadaan uurxumadooda iyo xaasidnimadooda bayna tusaayaan marka wada tutla hadii la aqriyo عليهم كركود آياتنا آيات كان هذه الواقرهم قالوا حيدان قد سمعنا وان مقلنا لو نشاء ودان دون لقلنا وان به كرنا مثل هذا أرن كانوا كلا وان به كرنا إن هذا كان موسى أهان أو قرآن كي كوضانه إلا أساطير الأولين كوي هربين توضعون بو هذا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك وإذ وقت حس قالوا أي هذين قالوا اللهم إله يوم إن كان هذا كان هدوية أو قرآن كا هو أسوأ الحق حق ومن عندك أكتا هذا كإماري هدي القرآن كان وياي فأمطر صور روبه علينا كركا نكسور روبه حجارة دقحان من السماء السماء حق دقحان نوغسو داري أو يتنا نولئمو بعذاب أليم عذاب حنون بدل نوكين فده كان دوقن نمضو وفيري وحيد هذا الإلهي والقرآن كان يهدو حق يهين دقحان عركا نوغسو داري وحيد إني لهذان إلهي وهدي القرآن كان حق وياي نقوها نوني حقا لا يوي كشك سنين وما يستان إنه حق يهي وحيلين كان حق معها وحي أهد مركا إنه إلهي أنه شك سنة هاي إنه سن حق هاي يانو أرقنا حديث أو حق يهي إلهي وأذيك أيها أوغي قلبك إنه كسوري وقال ما إيها أساسي قانيه مؤمنين توحي كدو عيسان اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إلهي حق حقي سنوتسي إن راعننا إلهي نصي باطل كان إنه باطل يا إلهي ونتصي إن أنكفوا جهنم إلهي ونجو أرزاق سياسة لو عيسى لكن دعاء دبق الدسن إلهي والقرآن كان دو حقيقة دحان وقصوا داري أما عذاب نقصوا دجي وهو حاد يا الله يا عقل حمو كتصين عيسى وعلى الشيء الحافظ ابن كثير رضي الله عنه أرنو سوء أروري وعلى الشيء معاوية رضي الله عنه يعني رأي مناطع وقال اللي يجري السبع ماشى استجنا يقول لك افتمي وحكوا قوم كينا جاهل لماذا أيان ليا بناه مركي أي بقرات هويني كدكتين ونمامل أي لهذين مركي أسانيك وحوري وحا قوم كيغا وحا كجاهل سن أذيك قوم كاغا مركي رسولك إلهي أي لهذين مركو حق أويا إلهي ودو قرآن كان حقيا دحان وقصوا دادي أو أي سندهن إلهي ودو حقيا نوها نوني كواسا كدقون سنويري كوحانو كان لما أركين معاوية وإسكا عاموسي marka waa doqonnimo meeshii ugu dambeysay hadalkan ay ku hadleen ilaahay quraankan duu xaq iyo dhagxaan ugu soo daadi ama cadaab yaani xanuun badan noo keen sidaas ay yiraahdeen wama kana allah liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana allah ilaahay muusan ahaanin liyu'adhibahum inuu cadaabo ilaahay ma cadaabayo wa anta adiga oo fihim ku dhex jira wama kana allah ilaahay ma ahaanin mu'adhibahum mid cadaabi muusan ahaanin وهم أيجوا يستغفرون إلهي دم داف ويديسنا يعني قالبان إلهي وعذاب نقصه دج القرآن كان دو حق ياه قرآن هو حق والله بينه حق ياه هذه إلهي دعاء الله أقبل وعذاب وكسو دج وهلي كرام لكن إلهي حكمة ديسة ومدان النبي صلى الله عليه وسلم مركل الله صاري يعني عذاب كودا يعقات المرسينا يكوض حماضة لقما دين سيدي أمديه هراك عذاب دبرجوينه oo dhulka intii la gooyo kulligood ay wada dhintaan laga ma dhigin ee waxoogaa yar imtixaanaad oo mar abaar iyo mar colaad iyo mar waxoogaa yar si wax ka noqdaan iyo intaas cadaabkooda u ahaa sababta saas loo yeelin waxay tahay joogitaanka nabiga uu ku dhex jiray ayay ku badbaadeen yaani ummad nabigeedii uu dhex taagan yahay ilaahay ma cadaabayo markuu ummadda ilaahay u halaagayo horta nabigu ka dhex saaraya sidii nabi luut oo kale qoomka ka dhex baxaa la yiri oo habeenimo adiga iyo labadaada gabdhood magaalada ka baxa maxaa yeelay subaxdii markuu waaga bariyo qoomkaaga dhulka ayaa la goynayaa islaantaaduna kuwaas ay kamid tahay hala joogto oo ayaysan raacin sidaas lagu halaagi jiray marka nabi sallallahu alayhi wasallam joogitaankiisa gaaladii markaas joogtay waxa leeyahay waxaan loo cadaabaynin la joogitaanka adiga aad la joogto iyo midda kale qaar waxaa jira mu'miniin ah oo ilaahay dambi dhaaf weydiista marka gaaladan joogitaankeeda waxay ku joogaan ama nabiga la jooga ama haduusan nabiga la jooginna ducada dadka mu'miniinta ah ayay ku joogaan marka labadaas arimood ibn Abbas wuxuu yiri laba arimood waa laba amaan oo ilaahay ummadda uu siiyo cadaabka uga ilaalinayo mid waa nabiga sallallahu alayhi wasallam midna waa istighfaarta wuxuu yiri amma an-nabiyyu faqad mada
نبي واو تجيو قيبته هذا الله لجوج إلهي مع ذابه لما جوجه نبي صلى الله عليه وسلم وتجي مدي لبعض استغفار تهين وحوري تاسوا باقي إلى يوم القيامة إلى قيام اللي جاره استغفار تاس أي جريسة مرك إلو أنت أسود دنبلا جلي هذا إن إلهي عافما ضدك وسينا يو لبعتها كفو ضينا يو وحاس أو رفاض أو لمرأي إلهي وسهل أيو أنت أصلا وحيكون سبب تهذا وحيتهم ضد حاجر مؤمنين أو إلهي أدومي سون نكسنا أو هبينك سوكع أو إلهي بريء أو استغفار لي ماذا كواس فضلك إلهي وسيء استغفار تعب أيا لوجوجا تاس أيو إلهي ضدك كدينا يا ما هنا هدينا كواس جري لهين أو استغفار صنايا مرة ضدك الهلاجي لهالين بل ما كان الله إلهي معهن ليعذبهم إنه عذابه وأنت أذيع فيهم كل حجرة أنت النبي وأذيع عاد نوشهي أدل جوكتي عذاب دبرجوين العذاب مايو أباره وعلى جيا بين كل عذاب واتنا بقوا هبار قريش أو إلهي أباره النبي يوسف حلقي أو دعاء وكلام إلهي كوان كقبو أو أنت عبارة كل عام إلى أي مقارك كعنان أي أباره أي كجرتي مرك عذاب كاس أو كلام ومرايا أو عقابة لكن كيد دبرجوين تها دول كلا جوين جرام الضوفان لو قال جرين نبي الجوجتان كيس أيكو بدبادايم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم هذا كل حجرتد إلهي مع عذابهم وما كان الله إلهي معان معذبهم كعذاب معها وهم أيوة يستغفرون استغفار لإيماناي أنت أيقدتك قار كم إذا إلين أستغفر الله إليهم إلهي عذاب دبرجوينا تتكم قبنايو وحوقا إن لا يرد لباء سيء أصول نقضان ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر العالم يرجعون لكن عذاب دبرجوينا وتوكلنا أي وضع رمضان إلهي أمده وككريي دتكاس مؤمنين تا استغفار توضا فضل وضا أي كبد بادين واستغفار تا إلى إيمانين إلهي نود مداف أي كو هايان عمل كاس أي هايان أي إلهي دتك عذابك وهلاقي لها أي أجبد بادي وما لهم محا الصقناضي ألا يعذبهم الله وأوسن إلهي عذابين وهم أيغو يسدون الريبايان عن المسجد الحرامي مساجد حرمة لأيغو دتك كعلنايان وما كانوا معي سنهان أولياءه أوليذي سمين أهانين داد مساجدك إهل أوه وإن إمامولان حق له معي سنهان إن أولياؤه إهل كيسو أم أوليذيسو مساجدك معي أهانين إلا المتقون كو إلهي كعب سنة يأنباء هذا ولكن أكثرهم سيء بدنيهين لا يعلمون وحمق قرنايان يعني وحال الله أيغو أسبابتي لوها لاقي لها أما لوها عذابي لها ليمت أيها هدنا نبي وجوغتان كاغا فضلك عذيك على الله ذهد كل حجوغتid أيو إلهي كبت بادنايا إيا استغفار تضدك مؤمنين تعب أسبابتي لوها لاقي لها وي لا إمادن أو حاكم ذا مسجدك إلهي حرمي مسجد الحرام كعام أو أيها تروحي سوء هذا إنا اللو ديدين أيها مؤمنين تا إنا إلهي كو عابدان أيها ديدينهم كوان مركا مكاها يستا أو ولي أود كله إنا مساجدك إلهي مامولان إهل ومعها مساجدك إلهي ما ملكي سوحا إهلوا دادك إلهي يقان إلهي كعب صنايا لكن دادك انتو ضبنا وحمد قرنايانهم وعي أملايان ما ملكو إنو حوق يهي أو كي حوق قبصدا وحمامولاي أيها هايستان سلاس ما إيه خصائص إيا صفات إيا أخلاق بيتك إلهي لغو مامول أو التقوضة أي كو كتاي سلاس أي إيه لغو نغضا وما الله محا أسقنا ذي ألا يعذبهم الله أو إلهي يسنو عذابين وهم أيقوا يسدون ريبايان عن المسجد الحرام مساجدك حرمة له ذاتك كعلنايان وما كانوا ما أيسان أهانين أولياءه أوليذي سماين أهانين كواس قال هذا مسجد الحرام أو مكة وإنت اللي يجرونين أيوه هيستين ويقالوا مكة هيستين ويمعنى وما كانوا ما أيسان أهانين أولياءه أوليذي سماين أهانين إهل مساجدك أمعها إن أولياءه أوليذيس أم إهل كيس موسى أهانين إلا المتقون كو إلهي كعب صدا ومبائهل ومساجدك مسجد الحرام كا ولكن أكثرهم سيء بدن يهينسي لا يعلمون مقرنايان وما كان صلاتهم عند البيت هبك أي عبادي سنايان كفار قريش أي إلهي نوت المامايا وما كان مؤسنان صلاتهم صلاة دوضو عند البيت كعبادة أكتاذا أي صلاة كنت كنايان قالوا هبك أتو كذا وحكرا معها وما كان مؤنهان صلاتهم صلاة دوضو عند البيت بيت كأكتيسا إلا وحي أهاتين مكاء فوري iyo watasdiyatan iyo sacbin yani markay tukanayaan way foorinayaan ma yahay markay foorinayaan ma geel bay la joogan mise Allah bay la joogan yani ilaahay meeshi khushuuc iyo quraan akhris iyo dhikri ilaahay yani loogu dhawaan lahaa ya ciyaar iyo cabaf ayay leeyihiin sana salaada kacbada ayay dawaafayaan ayagoo iska foorinaya meeshi ay dhigayaan labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk adkaar meeshi akhrisan laayeen way foorinayaan
أما ويستعبنا أيام ويسكعيارا ودد بيلا يا معناه وما كان صلاتهم صلاة ميسنا عند البيت بيت أكتيس إلا وحياتي مكاء فوري وتسدية يستعبن فذوقوا العذاب وحلول فذوقوا الأدمية العذاب عذاب كالأدمية بما كنتم تكفرون كفنتي كفرسين صابتي العذاب كالأدمية عذاب كان ودقالك بدر مركي أي جبين وقارن للدلي قارن اللقبتي ساسي كو عذابيهم كي آخرنا وسيد لمية مركي فذوقوا العذاب عذاب كالأدمية بما كنتم وحي على هاتين تكفرون كوا كفرية إن الذين كفروا ينفقون أموالهم مركي دقالك بدر أي جبين وساسي عذاب من أيا sababtii dagaalkan keentay oo ahayd dad safar ah oo raashin wata oo Madiina kor maraay oo muslimiintu ay rabeen inay ka soo qaataan oo baxsaday oo Makka tagay yaa waxay markii dambe go'aan ku gaareen wixii faa'iido oo badeecadan laga helo maadaama ayada sababteeda rag badan ay u dhinteen nin walba xoolahaas iyo xoolo kale uu ku soo daray ha loo soo diyaar garoobo sidii dadkii dhintayna loogu soo aaro diintaana loo hor istaago markaas Ilaahay aydan soo deji Ilaahay wuxuu leeyahay innal ladina kafaru kuwa gaaloobay ينفقون أموالهم حولهم أي بحنايان ليسدوا عن سبيل الله جدك إلهي سيدتك وقعريان فسينفقونها ويبحنايان ثم تكون وحين نقونيسا عليهم كركوضا حسرة شليتا أي نقونيسا ثم يغلبون ولقات كان دونا والذين كفروا كوا قالوا إلى جهنم حق هذا أي يحشرون لوكل من دونا حال المؤمنين توحباك عبصاننا قالوا حولها هذا بحسو إلهي دينتي سنكور استاقي صومره diinta ilaahay waxay la mid tahay cadceed soo baxday qorax soo baxday sacab lagu ma qarin karo qofkii ilaahay waan qarinaya ama waan afuufaya waan daminaayana ma damin kara yuriiduna liyudfiru nuur allahi biafwaahim wa ya'ba allahu illa an yutimma nuura ilaahay diintiisa uu taam yeelaya wixii ka hor imaansha oo isku dayana si kasta oo shirqoole loo maleego ugu dambaysta waxay ku dhamaadaan fashil ay ku dhamaadaan innal ladina kafaru kuwa gaaloobay yunfiquna amwaalahum xoolahooda ayay bixin liyasuddu si ay u celiyaan can sabiilillah جدك إلهي سيدتك وعليان فسينفقونها ويبحنايان ثم تكون عليهم كركوضا وحيكون قندون تاع حسرة شليتو وحواليه كبحي وأيوايين ويكشلين دونان ثم يقلبون وانا لقاعد كان دونان او دقالة اي جري دونان ويكجري دونان مركي جبانو الدنيا دا طافيو إلا ديدلو انتاس لو قدين مايين آخرنا وحا قدن بايا والذين كفروا كوا قالوا بإله جهنم حق هذا اياه يحشرون الله كل من اياه او نارت الاسوقين اياه ليميز الله الخبيث ليميز الله إلهي إنه الصاع الخبيث كان حم من الطيب كان وناكسن حقيس إنه كالصاع أي إلهي أغتلا قلي يعني واحد قال أساس لو يالي أو إنه يعني جبايان الله شاقي مالكو ديسو حتر إن الله شاقي وحيتهي مؤمنين تنيد سمين تايكا قادان أو سيدي أي سيقع الله إن أديار قروبان حديث ساس ليالي واينا يعني وحاول ماشا إيمانايا intii fiicanna inay banaanka u soo baxaan oo diintu ay run ka tahay intii been wadatana banaanka ay ku dhacayaan marka waa tamyiz iyo kala soocid oo yani markii diinta yani arrimaheeda loo shaqeynaayo ayaa la kala baxaya liyamiz Allah ilaahay si uu u sooco al khabitha kan xun min at-tayyib kan wanaagsan xaqiisa uga sooco wayaj'al al khabitha kan xunna uu yeelo bacdahu qaarkii ala bacdin qaarka kale fayarkumuhu isdul saaro jamiican dhammaan فيجعله ياله في جهنم دحديده اولئك كواس هم الخاسرون كوا خساره اي اهادين يعني ان لك لا سارو ميدك فيعان iyo midka xun يعني امتحاناتك iyo ibtilaadka waxay keenaan dadka ay kala saaraan inta ayna dhibaatadaas dhicina dadku isku duuban yihiin oo cid walba inay fiican tahay sheeganaysa laakiin isku duubnaantan oo fidnada intayna dhicin ka hor ah saas dadka lagu dhaafi maayo ma kana Allah liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib sidaas ilaahay idinkaga tagi maayo ilaa la kala soocmo oo kii diintu run ay ka tahayna ay soo cadaato kii diinta been ay ka ahayd oo ku gagabanayna banaanka ugu soo dhaco waxa yamiza Allah alkhabitha min at-tayyib wayaj'al alkhabitha xumaan kan xun uu yeelo bacdahu qaarki ala bacdin qaar kale fayurkumuhu isdul saara jamiican dhamaan فيجعله في جهنم أسوقيه أولئك هم الخاسرون أي آدم كوا خسارة قل وحاد كتر هذا النبي للذين كفروا كوا قالوا وحاد كتر هذا إن ينتهوا هدي أي ريب تومان أو قال لماذا ينبي للدقالك يدين هرستاقة هدي كجوغان قل وحاد هذا للذين كفروا قالوا وحاد كتر هذا إن ينتهوا هدي ريب تومان يغفر لهم والله ضعفي ما قد سلف وحي هرمري والله ضعفي أو يعني قال لماذا هوري دبعتي المسلمين تقول جيستين هدي سواء إسلامان ونبك إسكت دايان انت هر والله ضعفي إن ينتهوا هدي ريب تومان يغفر لهم والله دم ضعفي ما قد سلف وحي هر تجي وحي هرمري ودم بهوري وقالان
قبل الإسلام والله ضافي ويعودوا هدي لابتان أو لدجالن كي نبي مؤمنين تايلا دجالين أي دبوا صو نقدانا فقد مضت ويتكتي سنة الأولين كوي هرجيت كودو وعد يهي أو دين لا دجالة إن لجو جوريسين عدي دين لا دجاشة أيضا بخساريسا وما ده هرنا ساسة يهايم كوا هذا جوجنا واساس كوا إيمان دونا واساس محيل الدين إلهي بإسكاله عدي إلهي لا دجاشنا إلهي بكحوجين marka yacuudu haday soo laabtaan oo diin la dagaalka ay dib ugu soo noqdaan faqad madat way tagtay sunnatu alawwalina kuwii hore jidkooda waqaatiluhum la dagaala hatta la takuna ila aysan ka ahaanin fitnatun fidno hada fidna ayaa jirta yani qofkii diintiisa si rasmi ugu dhaqmi lahaa yaa loo diidayaa marka wadcigaas waa in la zuuliyo oo la soo gaarsiyo xilli ruuxu ilaahay si xor oo caabudi karo laakiin in la ishaysto la isgumaysto oo yani la isfidneeyo oo diintaadi ka soo noqo diintaadi ku dhaqmin la is yiraahdo wadcigaas wadcigi ilaahay oo muslimiinta ugu talagalay ma aha waa wadci ay tahay in la bedelo marka waqaatiluhum la dagaala hatta la takuna ila aysan ka ahanin fitnatun fidno ويكون الدين عبادتنا أي أهات كله دمانتي لله إلهي أو سغناته فإن انتهوا هدي ريبتومان أو قال لماذا يدين للدقالك إسكت عفان فإن الله إلهي بما يعملون وحي سمينا بصير إلهي هو أركع وإن تولوا هدي أي جيستان أو أي سيوتان حماتضو دي يدين للدقالك فاعلموا أغاذا أن الله إلهي مولاكم جرجارهن إنو يهي إذن كمؤمنين هداتهين إلهي يأتسكوها الله ينيسان هدي أي جيستان أو أي قال لماذا كسي السعودان أو واندا أي أنفعي ويدو iska dhaaf gaalnimada iyo diin la dagaalka hadii saantii la yiri ay diidaan dhahay waan sii wadaynaa faclamu ogaada mu'miniin hadaatiin an allah ilaaha ya mawlaakum gargaarihiina nicma waxa nicma lahaaday al mawla gargaara ayaa nicma lahaaday ilaahay cidi u gargaara kale uma ibaahno in yansurkum allah fala ghaliba lakum haduu ilaahay idin gargaaro cid idinka adkaan karta male wa in yakhdhulkum faman alladhi yansurukum min ba'di haduu ilaahay idin hoojina yaa idin gargaari kara marka mu'miniinay ogaada ilaahay ayaa mawlihiina ni'mal mawla gargaara asaga ayaa u nicmo badan asaga ugu fiican wa nicma waxa nicmo lahaaday an nasiru gargaare ilaahay ayaa u nicmo lahaaday allahaas ayaadna diintiisii faafinaysan oo diintiisa aad ku socotaan asagaas isku haleeyo oo diintiisina wada asagana barya guushana idinka ayaa heli doontiin asbaabtii aad ku guuleysan lahaydeen un diyaarsada ilaahay wuxuu diyaar idin leeyahay inuu idin gargaaro alla gargaari karana waa uu yahay ni'mal mawla wa ni'man nasir xiriiriye iyo gargaare ayuu ilaahay u nicmaysan yahay ugu fiican yahay asoo kale ma jire ilaahay isku haleeya ilaahay diintiisa qabsada waad badbaadaysaane درسنا maanta intaas ku eegay wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh